muslimiinta dalka Jarmalka ayaa subaxnimadii xadda u dareeray tukashada salaada Ciidal Fitriga kadib markii ay dhameysteen 30 maalmood oo ay soomanayeen bishii barakaysnayd ee Ramadaan. qaabka tukashada salaada ciidda ayaa ahayd mid aad uga duwan sanadihii hore la soo dhaafay, waxaana goobaha cibaadada iyo meelaha ciidda loogu talagalay ka soo xaadiray dad aan badnayn saameynta cudurka coronavirus dartii. inta badan bulshada Soomaalida ah ee ku nool dalkan Jarmalka oo ay maantuun ahayd maalintoodii koowaad ee Ciidal Fitriga oo Saab TV la hadlay ayaa fariimaha hambalyeey ah u kala diray ehelada iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee kaleba. ugu horeyn bulshada Soomaaliyeed iyo ummadda shucuubta muslimka waxaan leenahay ciid mubaarak oo adigu ugu horeysid. waxa kale oo halkan ka salaamayaa hooyaday macaan deeqa maxamed cadaad aabahay cabdi yuusuf xuseen walaaladii oo dhan ehelkayga habaryariye dooyin iyo adeeraba haday noqoto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi saddexda gol qaran gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Ciro gudoomiyaha xisbiga Ucid Faysal Ali Waraabe. waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta daafta gaaf ummadda muslimiinta dhammaantood waxaan leeyahay kula caamaanto bilqaal gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed oo maanta u ciiday u dareertay salaada ciidda. waxaa kaloo salaamaya dhammaan qoyskayga reer Ciise Maxamed Aadan ay ugu horeeyaan labadayda hooyo Baar Nuur Jibriil iyo Faadimo. waxaan kaloo salaamayaa dhammaan shacabweynaha ku nool dalka Jarmalka. waxaan ku darsanayaa walaalo Sakariye inaan fariin u dirayno wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan xukuumadda Soomaaliland in dadaal adag laga galo la dagaalanka cudurka xanuunka ah aan la arkaynin shacabweynahana si weyn loo wacyigeliyo. waxa kale oo fariin u diraynaa qurba joogta jaaliyadda Soomaaliland wadamada ay kala joogaanba dalkan Jarmalka ay joognay iyo wadamada kaleba in ay ka qayb qaataan la dagaalanka xanuunkaasi. waxaan halkan ka salaamayaa guud ahaan dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan inta afka aan ku hadlayo fahmaysa ee muslimiinta waxaan leeyahay kullu caam wa antum bil khayr. waxaanu ku ciidnay dalkan Jarmalka aad iyo aadna waxaan u salaamayaa dhammaan guud ahaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Jarmalka kuwa waddanka jooga waxaan leeyahay bashbash iyo barwaaqo ku ciida. waxa kale oo aan salaamayaa dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ummadda muslimiinta oo dhan oo aan ugu bushaareynay munaasibada ciidal maxaan ku raadayay fitrida. waxaan leeyahay sanadkiisa Ilaahay ku gaarsiiyay bashbash iyo barwaaqo. waxa kale oo wax weeye aan ku daraya wax weeye acmaasha iyo soonka iyo salaadaha wax weeye dadka muslimiinta ay tukadeen in Ilaahay ka aqbalo wax weeye miisaanka xasanaadka ugu daro. madaxweynaha qaranka Muuse waan salaamayaa, Saylici ku xigeenkiisa waan salaamayaa, ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyagana waan salaamayaa. munaasibada ciidda awgeed waxaan halkan uga hambalyeynayaa dhammaan ummadda muslimka. waxaan si gaar ah uga hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed iyo asxaabta maanta aan halkan farxadda ku wada qaadanay iyo waxaan yana si gaar ah aan u salaamayaa ehelkayga oo aan halkan ku soo koobi karin iyo asxaabtayda kale. TV dhamaantiin waxaan halkan ka salaamanaa dhammaan mujtamaca reer Soomaaliland iyo mujtamaca Soomaaliyeed meel kasta oo adduunka ay kala joogaan. waxaan gaar u salaamanaa waalidiinteedii oo Hargeysa ku nool oo Burco ku nool oo Cergaabo ku nool oo Berbera ku nool dhammaantood. waxa kale oo aad iyo aad halkan uga salaamayaa inta asxaabtayda ku nool wadamadan qaaradda Yurub iyo Ameerika iyo Australia meel kastaba. waxa xagga kale si gooni aan uga salaamayaa waalidiintay hooyaday aabahay iyo dhammaan faamilada dhammaan meesha joogaan. waxaan xaggan si gaar ah u salaamayaa oo hambalyo iyo ducaba u dirayaa waalidiintii eedooyinkii hooyooyinkii walaalihii dhammaan iyagoo afuran oo inala afuran oo dad inala mid ah afurkay noo sameynay. waxaan leeyahay raxmadda Rabbi ha idin rushayso. aad baan idin salaamayaa. Ilaahay sanado badan oo khayr qaba hayna gaarsiiyo ha inagu simo. ummadda islaamka oo idil gaar ahaan dadka Soomaaliyeed meel walba adduunyada ka joogaan. waxaan sidoo kale aan hambaliyada halkan uga dirayaa asxaabtayda iyo ehelkayga. waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid alcaafiya. ilaahay ha naga aqbalo rabadaantii aynu soo soonnay. sanadkiisana ha nagu gaarsiiyo farxad iyo barwaaqo iyo bashbash. waxaan salaamayaa waxaan leeyahay ciid mubaarak wa antum bil khayr. gaar ahaan waxaan salaamayaa ummadda reer Soomaaliland dhammaan dawlad iyo shacabba. waxaan ka salaamayaa Sakariyo dhammaan eheladii iyo qaraabadii asxaabtii intaba waan salaamayaa. waxaan leeyahay insha Allah bilaa kareem ciideeda Ilaahay noo gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo nabadgelyo. Sakariye Jilani, Saab TV.
dalweynaha Jarmalka.